Just staggering! I don't think I've ever witnessed emotions like I've seen today, from crowd to the field. Michael Owen wins it! asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeena ciyaaraha. maanta waxaan halkan ku falaqayn doonaa horyaalada qaaradda yurub oo daaha laga rogay. horyaalka xiisaha badan ee Premier League ayaa xalay daaha laga rogay, waxaana iswajahay naadiga Brentford oo soo dhaweysay naadiga kubadda cagta Arsenal. waxaa halkaas ka dhacay ciyaar xiiso badan. Brentford ayaa soo bandhigtay ciyaar cajiib ahayd, waxaana halkaas ku garaacday naadiga kubadda cagta Arsenal ayaa u muuqatay mid aad u liidato maadaama ay xalay soo bandhigtay ciyaar lagu caajisay. tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Mikel Arteta ayaa wajahaya bareshar xagga taageerayaasha ah iyo maamulka. Arsenal ayaa soo iibsatay ciyaartooy fara badan, waxaana xalay u muuqatay mid aan waxba iska bedelin sidii hore. Arsenal ayaa wajahaysa kulanka soo socda naadiga kubadda cagta Chelsea, halka kulanka ku sii xigana ay wajihi doonto naadiga Manchester City. xalay waxaa la ciyaaray kulan ka tirsan La Liga, waxaana wada ciyaaray Valencia iyo Getafe. waxaa hal iyo eber guusha ku raacday Valencia. horyaalka Bundesliga waxaa la ciyaaray kulan ka tirsan, waxaana wada ciyaaray Mönchengladbach iyo Bayern Munich, waxaana ciyaartaas kusoo dhamaatay 1-1. maanta waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan Premier League, waxaana wada ciyaari doono Manchester United oo soo dhaweyn doonto naadiga Leeds United, Burnley iyo Brighton. Chelsea ayaa soo dhaweyn doonto Crystal Palace, Everton iyo Southampton, Leicester iyo Wolves, Watford iyo Aston Villa, Norwich iyo Liverpool. sidoo kale waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan Faransa. PSG ayaa caawa ciyaari doonta, waxaana la filayaa inuu ciyaaro ciyaaryahan Lionel Messi kulankiisa ugu horeeyay. sidoo kale waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan horyaalka Bundesliga. Dortmund ayaa soo dhaweyn doonta Frankfurt. sidoo kale waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan La Liga. Deportivo ayaa soo dhaweyn doonto naadiga Real Madrid, Mallorca iyo Real Betis. sidoo kale Osasuna iyo Espanyol ayaa wada ciyaari doona. waxaan halkaas kusoo koobayaa barnaamijkeena ciyaaraha. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Just staggering! I don't think I've ever witnessed emotions like I've seen today, from crowd to the field.